ولكن دقيسو ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إلهي بقرآنك إنه قشك في سورة فصلت وحول مالين باصوص سعوتا أعداد إلهي عز وجل نار تحق إذا الله صورين دونا أيكم ملائكة حق دمائك قراء عيسو مرقاسا بك قياما لكيني دونا مرقاسا وحا مرقا كبوحين دونا با إلهي يلي مقال كودي با مرقا كبوحين دونا أرقوكي با مرقا كبوحين دونا jirkoodii harigoogii marayga ku buuxin doona markaasay orani doonaan marka naarta lagu wada guro ee afkiil xidhnaana loo furo bay oran doonaan annagu ininkaan badbaadinaynay oo naarta inaad ku dhacda niga badbaadinayay buu afkii leeyahay maxaa maraga iigu buuxisan maadi qarisaana markaasaa gacantiiya lugtiiba hadlaysa oo ishiiya dhegtiiba hadlaysa oran doonta annagu iskama nu hadlinay ilaaha wax waliba ka hadliyay ayaa naga hadliyay bay oranayaan waliba isagaa marka hore inay abuuray biyo yar buu inaga abuuray waana kaad xaqiisa u noqonaysaa baa lagu odhanayaa haddaad kamerada bini aadamku ay samaysteen aad ka cabsanayso ilaahay ku abuuray aad ka xishooni weyday waxaad doonto aad eegayso waxaad doonto aad ku hadlayso sidaad doonto aad u soconayso waxaad ogaataa maalin baa soo socota kamerada kugu rakiban oo dhan laga warrami doona ogow dhegtu way warrami oo maxay sheegi dhegtu waxaad ku dhegaysanaysa bay sheegi ishaadu way warrami oo maxay warrami doontaa waxaad ku daawanaysa bay sheegi doontaa harigan uu warrami doonaa harigan muxuu sheegi doonaa wuxuu ku koray xaaraan baa mise oo xalaal uu sheegi doonaa jirku beentuna waxay iska noqotay mashruuc lagu shaqaysto oo lagu foofo kan run sheegana zamankan waxaa loo arkaa wadaad beenaalahana waxaa loo arkaa waa reer magaal ninkaas waa nin reer magaala bahal inkaaran bay yidhahdeen qolada reerkiga inkaaran maalin baa imani doonta waxaasoo xubno bini aadan oo jirhkeenna ku jira warka ay sii dayni doonaan halkee loo baxsan doonaa maalinta bal ii sheeg alyawma nakhtimu calaa afwaahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أفكنا لغا قبني دونا با إلهي يدي عافية اللغوه كورمي دونا با إلهي يدي عبسدي الله رب العالمين عبسدي سيمركي إنغو يراتي أيان دعدي دادبادنا مسلمين إني بينس كشيغان inay wax walba ka shaqeeyaan inay wax walba daawadaan inay wax walba dhageystaan inay siday rabaan ay u socdaan taasaa keentay markaas cabsidii ilaahay markay qalbigeena ku yaraatay qalbiga shaakirku waxa weeyaan waa qalbiga labada sifo xambaarsan bay culimmadu leeyihiin alkhawfu waalrajaa waa qalbiga ay ku jirto cabsida ilaahay baa qalbiga ku jirta marna maaragtaan rajada ilaahay baa qalbiga ka buuxda marna waa cabsoonaya oo ilaahay qabashadiisu ka cabsanaya ilaahay cuquubadiisu ka baqaya ilaahay xisaabtiisu ka baqaya ilaahay la kulankiisu ku sii talagaluu ka baqaya marna waa muumin weeyaano rajaaga qaalib waa rajaayo naxariista ilaahay buu rajaynayaa ilaahay jannadiisii buu rajaynayaa ilaahay naxariis badan inuu yahay buu garanayaa ilaahay dambi dhaafe inuu yahay buu garanayaa cabsidana qofka muslimka waxaa laga rabaa waa intanuu caafimaadka qabo weeyaan rajadana waxaa laga rabaa waa markuu dhacu bukoodu xanuunsadaa laga rabaa inuu rajadu soo baxdo intaad caafimaadka aad hayso ee dhallinyarada aad tahay eed amniga aad haysatid ee arsaaqadda aad haysatid waxaa la doonayaa inaad ilaahay ka cabsotid maalinta da'daadu ay weynaatee 70 aad gaadhid ama 75 aad gaadhid ee dhinac walba lagaa qabtay xanuunku uu bato eed haddeetoola aad dhinaca dhulka dhigtidna waxaa la doonayaa inaad tidhaahdid allah ilaahay baan haystaa ilaahay waa kariim rabbi kariima oo raxiima oo ghafuura oo shakuura oo cafuw ilaah kariima oo dhaafid badan oo naxariis badan ayaan u tegayaa inaad tidhaahdid baa loo baahan yahay cabdillaahi ibni mascuud radiallahu canhu ayaa sankaraadkii markuu xanuunsaday cuthmaan binu cafaan baa u yimid markuu cabdillaahi dhulka uu ku dhacay
markaasuu soo buuqday baa la yidhi wuxuu ku yidhi maxaad ka cabanaysaa bal ii sheeg halkee kuugu daranoo maxaa kuu haya oo macnaha halkee kuugu daran markaasuu meesha iigu daran ma kuu sheegaa dunuubtaydii baa iigu daran buuhi dunuubtaydii innaka maanta qofku markuu xanuunsado ee la yidhahdo halkee kuugu daran muxuu sheegaa meesha laga hayuu taaban halkaasaan layga hayaa halkaa kalaa layga hayaa cabdullaahi binu mascuud meel xanuunaysa ma sheegin waayo baahidooda makhluuq uma sheeganayaan baahidooda ilaahay bay u sheegtaan makhluuqa baahidooda way ka qarsadaan baahidooda ilaahay bay u sheegtaan walaakiin wuxuu yidhi meesha iigu daran waxa weeyaan waa dunuubtaydii famaa tashtahi buu ka yidhi maxaad haddana naftaadu ay jeceshahay qofku markuu xanuunsan yahay waxaa la war naftaadu maxay doonaysaa baa noo sheeg markaasuu caano yarii keena qudrad yarii keena bariiska niga qaado walaakiin cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi waxay nafsadaydu ay doonaysa maanta waxa weeyaan waa ilaahay naxariistiisa ilaahay naxariistiisaan doonayaa buu yidhi meesha iigu daranna waxa weeyaan haddaad i weydiisay waa dunuubtaydii ninka hadalkaa ku hadlaya waa ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninkii doonaya qur-aanka siduu ku soo degay inuu ku akhriyo cabdullaahi ibnu mascuud siduu u akhriya qur-aanka u akhriya buu rasuulku yidhi waa ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu markay arkeen cabdullaahi ibnu mascuud oo geed kor saaran lugihiisu luga yaroo dhuudhuuban bay ahaayeen ayay ku qosqosleen markaasuu nebigu ku yidhi maxaad ku qosasheen bal ii sheega ma lugihiisaa yare miiqmiiqan baad ku qosasheen wallaahi baan ku dhaartee buu nebigu yidhi buurta jabaluluxud haddii miisaanka kafad la saari lahaa lugahaa yare cabdullaahi ibnu mascuudna miisaanka kafadda kale la saari lahaa lugaha cabdullaahi baa ka cuslaan lahaa buu rasuulku yidhi laanna iimaan baa ka buuxa macrifada ilaahay baa lugihiisa ka buuxda qur'aan baa ka buuxa fahmi diina oo saxiixa ayaa cabdullaahi ibnu mascuud qalbigiisa iyo dhuuxiisa iyo dhiiggiisa iyo dheecaankiisa ka buuxa maxaa yeelay waa raggii ugu horreeyey ee nebi maxamed rumeeyey buu ka mid ahaa allah raalli ka noqde kaasaa cabsanaya oo kule waxaan ka baqayaa in laygu qabta maaragtaane dunuubtaydii waxaan doonayaa oo nafsadaydu ay doonaysaa waa ilaahay naxariistiisa الله إنه دم بدف قلب شاكر الله ينسي قلب مهنقا ولسانا ذاكرا يعرب ذاكرة أو حسك إلهي كم ينمر والبا عرب ويريحي لكن أعمال waxau soo tuurayaa marna jannada aad ugu dhowaanaysid marna aad naarta ugu dhowaanaysid isla carabkan unbaa marna been sheega marna runta sheega marna ilaahay buu xusaa marna hadal macsiyo ayuu ku hadlaa marna dadku caayaayo naar baad ku gali cayda bini aadanka aad caayaysid marna dadku wanaag u sheegaayo wanaagga ummadda aad u sheegaysid jannaad ku gali isla carabkan weeyaan marka carabkeena waa inaan ku qoynaa ilaahay dikrigiisa saxaabigii nabigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sharaa'icdii islaamka igu baahdee camal aan qabsada nebi allow ii sheeg buu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illaah yuuna ka tegin carabkaagu inuu ku qoyanaada mar walba ilaahay xuskiisa buu nebigu ku yidhi marka dikrulisaan baan u baahannahay inaan barno carabkeenna dikrulisaan سبحان الله وبحمده هذا مرتدادد جيت مرة جنة لقى بيري استغفار هذا التي مادد دنبقي ودنب إلهي كان نافيا قففك أقول ودنب الله بدل يا حسنات أذكرت أنا وأن بتصنعنا صلي النبي عليه الصلاة والسلام باستغفارته
iyo adkaarta maaragtaan masnuunada nabigeena laga soo wariyay waan badsanaynaa ala adulluka bi ahabbil kalam ila Allah Abu Dar al-Ghifari bu nabigu ku yiri ma ku tusaa amalka ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay inna ahabbal kalam ila Allah subhanallahi wa bihamdihi wa ibadada qawliga ta ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay bu nabigu waa ibadade wa subhanallahi wa bihamdihi dikriga ilaahay badi Aisha radiyallahu anha waxa kale noo sheegtay Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam noloshiisa inta u badan dhikri buuha dhikru jawarihna waa maxay haduu nabigu masjid soo galayo duca la akhristo laha ayaduna waa dhikr haduu masjidka ka baxayo duca la akhristo laha haduu aqalka galayo duca la akhristo laha haduu aqalka soo baxa duca lagaga soo baxa buu laha haduu suuqa maro duca lagu maro buu laha haday bil soo bilato bisha arka duca la akhristo buu laha haduu dhar xidhanayo duca la akhristo buu laha haduu reerkiisa la seexanayo duca la akhristo buu laha haduu gabalku dhaco duca la akhristo buu laha haduu soo kaco urdada ka soo go'an duca la akhristo buu laha haduu waagu bariyana duca la akhristo buu laha يذكر الله نبي إلهي بحسا ينولشي صدنبا نولشي صدن طاعي كل مطيع ذاكر بعلمة الهذين قف كستو إلهي أضع سن وذاكر ذكر وكان عربك كليا ماها دعوي كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام كسو أروري ونقصو أروري السنة ديسا وأين برنا إمام النووي رحمه الله كتاب نمبر نقر لنا مقعيس كتاب الأذكار أذكار تاسان آخر سنة adkaartu waa xisn adiga ku ilaalin waa dhufays hadaad dhufayska ku dhacdid shaydaanka waad ka nabad gashay xasadka waad ka nabad gashay saxarada sixirkooga waad ka nabad gali gaalada iyo maaragtaan sharkooga waad ka nabad gali waxaad noqonaysaa qof maxfuuda oo xagga ilaahay laga ilaaliyay baad noqonaysaa haddaan adkaarta akhrisanno bal xadiiska akhriso oo nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka gurigiisa marka uu ka baxayo ducada akhrista bismillaahi tawakkaltu cala allah ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان نك أقل كيس مركو كبحا يبو نبي يقول دعاء أخرستا ودعاء بسنك إلهي ما نقلك كقصوا بحي توكلت على الله إلهينا تلاد ونلبتي لا حول ولا قوة إلا بالله حالا أن معاصدا أن كقل إحلانا أنه مليه أود أن طاعد إلهي كوكبا كرانا مجرتو إلا إلهي أضونا مويانا نك دعاء أخرستبو نبي قولي ملك بأوير هذا هديت وادها نونتي وكفيت وحي أدوية حاجات يباهي كاقد داقسناي وننا واللقو قبتو واللقو دبولي وباهي هذا عدك لا كو قبتي ووقيت الشر يا مصيبه يا بلايا وحي أدونك ما أنت الله قدر بني آذن كنا أذيك واللقاء اللحيو واللقاء إلالي شايدان كينا مالو قصة ومرا مجرتان لقول هذا والدعاء ذاك ورما ودكان انت مرayni dad badan baa masaajida la noogu keen ubad yar yar oo dhakhtaradu ay yiraahdeen xanuunkooga garan mayno dhakhtaradii wadanadan iyo Jarmalka meel walba dhakhtaradii inta la soo maray ayaa la yiri kan adeer ma garanin xanuunkiisa iska haysta sunnada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hadday muslimiintu qaataan ay ku dhaqmaan balaaya badan oo dadka ku dhacaysa ilaahay waa ka ilaalinaya laana sunnaha nabiga qofka ku dhaqma no Facebook ka dhacay shaydaanka iyo sharkiisa lidalika adkaarta nabigeena hambarano insha Allah dhahda ha ku dhaqano waliba khaasatan dadkeena wadanka jooga bidaad dadka wadanka soo galayo adkaarta isku ilaaliya qul wallaha ya muawadatenka صلاة المغرب مركي لغا بحانا صدح جار خريستا بعد صلاة الفجر صدح جار خريا صلاة كالصوفر مركي لغا بحانا هالمر أخريستا أبينك مركي جيفاني سنة كتاب كان حسن المسلم وكتاب حج بقي سوير يهي لكن معاني وين بحنبار سيه كتاب قاير انتو الله صوب بحدان حافظها نقو دمر كان هلا برؤوبت كان هلا أخريو أقل كان آية الكرسي كو أخريا أبينك مركي قفك مؤمنكو جيفانا يبو نبي قولي آية الكرسي قفك أخرستها هبين كاسو دوحا إلالين يبو نبي قولي مارك تاني حافظ لالقو إلالين مالك با كدول تاقنو كو إلالين ليا شايدانكو مالكو صبر هيلي ميسي marka carabkeena carab daakir Allah ka dhigo dhikrigu iimaankana uu quweeyaa
عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر waxaad ku dadaashaa ilaahay xuskiisana badso quraanka akhriskiisana badso buu nabigu ku yidhi quraanka akhriskiisa laazim arladana wuxuu ku noqonayaa quraanka iyo dhikriga aad badsatay dhikrigaas wuxuu ku noqonayaa nuur iyo iftiin buu ku noqonayaa samadana waa laga hadalhayn buu rasuulku ku yidhi samada ayaa ka hadalhaynaya Allahu rabbul alamin fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun ilaahina abuuray baa inagu leeyahay xusa oo ay hadal haya mar walba aniguna waan hadal haynaya haddaan ilaahay mar walba aan hadal qaadno oo gaariga fuulaysa aad ku hadal qaado gaariga fuushay gaarigu dhikri buu leeyahay subhana alladhi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun markaad ka daadagaysana ducadiyaad allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzalin a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq haddaan ducooyinka baranno waa sunna nabi maxamed ka sugnaaday weeyaan nolosha oo dhan waxay noqonaysaa cibaado ku noqon noloshaada gaariga aad raacday marka sunnaha ku raacdo cibaado lagu qorayaa jiifka aad jiifatay haddaa sunnihii nabi maxamed ku jiifatid cibaado lagu qorayaa cuntadaad cunayso haddaad sunnihii nabiga aad ku cuntayso cibaado lagu qorayaa geerida nagu dhacday haddii sunnihii nabiga la waafajiyo cibaadii ajar baan ka helaynaa arooskaaga haddaad sunnihii nabiga ku dabaqdo cibaada lagu qorayaa habeenkii reerkaaga markaad la jiifanayso haddaad sunnihii nabiga intood culummada weydiisid aad kula jiifatid ajar iyo sadaqa lagu qorayaa tarbiyadda awlaadaada haddaad diin ku tarbiyadaysid ajar iyo cibaada lagu qorayaa noloshoo dhan waxay noqonaysaa cibaada ku noqon noloshaadu laakiin haddaad iska noolaato bilaa sunna waxay ka dhigan tahay caada ku nool baa tahay caada ku nool caadadana ajar lagaagama qorayo ugu maanta dad badan oo muslimiina diin waxay u fahmeen salaada masjidka ay soo galayaan tukanayaan salaadu waa bidaaya waa meesha diinta islaamka laga bilaabo weeyaan meesha ku dhamaata maaha diinta islaamku waa dhaqan ka bilaaba caqiidada kuna dhamaada akhlaaqda wanaagsan ugu caqiidadu ka bilaaba iimaanka iyo tawxiidka diinta islaamku ay ka bilaabantaa meesha ku dhamaatana waa tabiicada wanaagsan buniya al-islaamu ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل حديث قال وحو تلماما يا بنيان ابتداء تلماما يا وماشى دين الإسلام كأي كبل عبتي سنس كمرك أقل الله الشبو كابدها الله بس يا مكبل من نبي بنيا والركون دي إسلام كويان إسلام كتاجي هاي حديث كان النبي وحو شاجي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا قاعدون على إيك نبي يقول أخلاق ده تيد وقوة أحسن إن نولش بني آدم عن قصة ما يسترو أركا دين باللو بهاي يوم الدين كنا كم يسينا نقولنا دين هذا كنا قلنا نولش إنه نور بنقول نور على نور نور على نور بنقول لكن هذا دين الآن تكسعته نولش هذا غفلت waxaa laga yaabaa markaa dhibaatooyin fara badan inaad noloshaada halis u gelisa laga yaabaa markaas allah inasiyo wabadanan cala albalaa'i saabiran baa nabigu yiri wabadanan cala albalaa'i saabiran waa nicmadii saddexaad qalban shaakiran walisaanan dhaakiran wabadanan cala albalaa'i saabiran baa nabigu yiri qofka ilaahay uu siiyey نعمة صدحات ونبي قلوا نعمة داس وقفك إلهي أوسي جد بلا يد حق الله وقت ما دعو أتكيسي بدن حنون هدو كل صوت درسو ده إلهي بكو كان أتكيسو فقري هدو كل صوت درسو ووحكو قدرناي أتكيسو مشاكل هدو كل صوت درسا ووحكو قرناي اسكا أتكيسو وماشا قال كي مسلم كو كلا وعدان ويان قال دونا waxa siday u dhaceen buu leeyahay muslimkuna waxa uu leeyahay way qornay arintani hor uga soco way qadarnay lama baajin kareen dad badan maanta markii qadarkii ilaahay ay garan waayeen ee fahmi waayeen zamankii aflagaadeeyaan waqtiga sida ay galay soo ma yidaahdaan
يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيدي أقلب الليل والنهار با إلهي الحديث القدسي إن آدم با إدبي با إلهي وصدين آدم إدبي زمن كو أفلقادين يا زمن ماها الزمن وحا وحبا بدل إلهي وحا وليهي أمركو أنيقا قعنت يدو كجرا حبينك يا مالنت أنيقا كينايا نولش أدونك أنيقا أمركا قدين يبا إلهي marka waxbad zamanka ayaan afka lagu taagin zaman sida ku galayna ma jiro dad badan oo muslimiin maanta waa ku hadlaan erayadaas waqtiga halka ay dhigay waqtiga aniga iga jeestay reehbel hadaatin waqtiga inila haya waqtigiiba kor inii qaaday waqti kor kuma qaado adigana kana kor uma dhige ilaahay ba azza wa jalla dadkiisa inna kor buu qaadaa inna hoos buu u dhigaa in maal qabeenu ka dhigaa in fuqara masaakiin buu ka dhigaa in xanuun buu ku ridaa in caafimaad buu siiyaa in ubadku ka qabtaa in ubadka loo ballaadhiyaa in ilaahay waa cizeeyaa in ilaahay waa duleeyaa in ilaahay baa hanuuniyay inay luntay halowda ilaahay baa ugu talagalay waa maqaadiir weeyaan qadarka aamin waa noqotaa istislaam الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة وأساسيات التوحيد كويا إنه قفك إلهي اسكن ديبو وحي طاعة إلهي وفرن أولي مادو واتقفك مسلم كعقيدتي سيكون لسطح هذا الدلالة والشقاي سنة قدر كامن هذا ازدوين ودودي استعماليا قدر كامن هذا والشقاي سنة وحوق سنة قدر كامن هذا فعلك اللي يمدي هذا قدر كامن قدر كان لقى تجي مايو شقدا إيه أسبابنا لقى تجي مايو وأنا لما أصل الصعبان marka adkaysi waa inaad noqotaa qof muslim oo dhibaatada u adkaysanaya dad badan oo muslimiin maanta way adkaysan waayeen kuleyl waan adkaysan weynay gaajeer waan u adkaysan weynay dagaalo yar oo mar ina soo maray waan u adkaysan weynay dib kaliya ka soo baxsadeen dib kaliya oo leeyahay colaad bay ka soo baxsadeen laakiin boqol mashaakil oo aan la garanayn bay maanta cagaha la soo galeen waxa ka dhacday inaan yaa harigayga celiyo maanta lama shariya harigayga celiyo ya nimba tuulo yar buu deganaa gaariga markaa magaalada ka soo baxay magaalada kale u socda ayaa soo mara ninka urgac yar buu haystaa urgi yar wuxuu fooniyana bariga ma jirin iyo telefoonna ma jirin laakiin wuxuu eegtay xeedadu eegtay xilliga baabuurka meesha uu soo marayay oo dadka uu ka iibin jiray markaa cuntada baabuurkii baa dhexda ku jabay markaa urgicii kaliya lahaana uu qalay baa la yidhi halkan uu yaalaayo markuu baabuurkii uu waayay urgi ayaa ka cun hilibkii intii leeka ayaa wankii harigayga celiyay buu yidhi dadkii maanta halkan dhulkan u soo qaxay oo dhan waxay marayaan calaacal arayaa dalkayga nabadu nooga dhigo mar nagu celiya dalkuna de waa nabad ogaada hadda dhibaata ma jirte dhibaata ma jirto dhibaato waxaa jira kuwa idaacadaha journalistiku iyo jaraa'idadu ay buunbuuniyaan wax weyn ka dhigaan mooyaane dhib ma jirto dhulkan dadku ay u yaaceen baa ka dhib badan dadka dhulkii joogay gaalnimo looga baqi maayo laakiin dadka dhulkii ka soo baxay ee dhul gaalo tagay oo iyagu waa muslimiin waa run